مهدي عمر مؤمن oo ah musharax u taagan qabashada xilka xildhibaanada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray maanta magaalada Cadaado waxaana garoonka diyaaradaha degmada Cadaado ku soo dhaweeyay qaybo kamid ah bulshada rayidka ah sida cuqaal iyo dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale ka gadaal salaanta iyo marxabaynta ay ku soo dhaweeyeen bulshadu ayaa musharaxa iyo wafdigiisa loo soo gudbiyay gudaha magaalada Cadaado musharaxa xildhibaan Mehdi Cumar Mؤمن ayaa la hadlay cuqaasha iyo wafdigii safarkiisa ku welinayay iyo sidoo kale mas'uuliyiintii ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa isagoona uga mahad celiyay soo dhaweynta habsamida leh ee loo sameeyay waxaan kaga mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad inaad soo dhaweyseen gudeeni kala horeysay intii waa ka soo kala dib dhacnay aan ka ordaaranayna arrimo farsamo awgeed oo soo kala dib dhacno oo soo kala hormarnay marka waa idin mahad celinaynaa anigoo ku hadlayo fudi وادين ما علينا كون الدنبي كون هرب إن شاء الله وأنا جوجنا دي بقى يعني سكية ما عندنا كنت ماشى وحيابها نوني منا وادمقل هيسان وادنا لقى هيسان هلا كانوا ونقص الري دي بقى كج شيء دونا إن شاء الله تعالى وأنا ما سنتين وحنا قال لين كجرجيني يا أنا أهيد دونتان بدل ما عندنا مركان وجدينا أركان وحيقام مغضب إنا نقول يسند دونا إن شاء الله مهدي عمر ayaa kamid ah mas'uuliyiinta u tartamaysa qabashada xilka xildhibaannimo ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dhawaan lagu wado in la soo doorto